taliyaha qaybta saddexaad ee ciidanka qaranka Soomaaliland ee gobolka Sanaaga Sareeyo Guuto Muuse Jaamac Delef oo ay hareero fadhiyaan qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka qaranka ayaa ka hadlay shaqaaqo dhawaan ka dhacday deegaanka Fadhigaab ee degmada Garadeg ee galbeedka gobolka Sanaaga waxaana uu taliyuhu sheegay in hadda ay deegaankaasi ka xasishay nabad ciidamada qarankuna ay si weyn u xaqiijiyeen ammaanka deegaankaasi tan iyo intii ay dhacdadaasi dhacday dagaalkii 19 bisha Abriil ka dhacay deegaanka Fadhigaab dagaalkaas oo ay iskaga hor yimaadeen laba beelood oo walaal ah aad iyo aad baan horta wax xunahay dagaalkaas inuu dhaco mana ahayn mid maanta ku haboon Soomaaliland in dagaal beeleed uu dib uga soo cusboonaado dagaalka hadduu dhacayna waxa weeye ciidan yar oo booliiska meesha joogay waa dadkii shacabkii isleynayay way ka xogronaaday iyagu wax ma akran laakiin waa laga xogronaaday markii dambe waxa uu yimi ciidanka qaranka oo ka hawlgalay oo hawshaas wax weyn ka qabtay oo maleeshiyadii meesha ku dagaalameysay oo dhinacyo badan ka dagaalamayay kala kaxeeyay arintiina ku soo celiyay aniguna naftaydu waan tagay taliyaha qaybta booliiska iyo waxa dhan waa wada tagnay waxaan ku soo celinay marka ciidanka qaranku wuxuu soo celiyay nabadgelyadii ciidamadii meesha isugu yimina waanu kala kaxaynay ilaa 30 kilomitir in la geeyay ciidanka meel u jirta magaalada Fadhigaab haddana ma ogolaanayno in ciidan dambe oo urursan oo meel lagu sheegaa oo ay dhacdo sida uu madaxweynaha jamhuuriyadda u sheegay ayaanu fulinaynaa wafdi xukuumadda ka socdana waa iman doona haddana waxa meeshii lagu wareejiyo nabadgelyada gacanta ku haya ciidanka qaranka cid kasta oo aan qori ku helno ama aan ku helno wax colaad muujinaya talaaba laga qaaday taliyuhu waxa uu sidoo kale ka hadlay mid ka mid ah gaadiidka ciidanka qaranka oo shil ku yimid sababay dhimasho iyo dhaawac xilli uu hawlgalkaasi amni u baxayay waxaana uu tacsi u diray taliyuhu waxaan aad iyo aad uga xumahay ciidankii noo gurmanayay gurmadka ahaa oo in ay gaari ka dhacay oo naga dhintay rag naga dhintay ragna naga dhaawacmay ragga dhintay waxaan leeyahay mujaahidiin bay ahaayeen iyadoo oo dab baqtiinaya oo dagaal meel dagaal ka jiro raba inay baqtiyaan ay naftooda ku waayeen kuwaas waxaan leeyahay naxariistii janna Allah ka waraabiyo iyo qarankaba samir iyo iimaan Allah ka siiyo kuwii naga dhaawacmana Allah u boogadhayo dadweynaha u sheegaynaa inaanan ogolaan doonin wax beel ahaan u socda oo beel ahaan dambe u dagaalamaya inaanan ogolaanayn wax dariiq istaagaya wax fidba abuuraya midna inaanan ogolaan doonin aanu ku shaqaynaynaa awaamiirtii uu madaxweynuhu bixiyay gabagabadiina taliyuhu waxa uu ka jawaabay su'aal ahayd maxaa idinka meel yaala jabhadda dhawaan lagaga dhawaaqay buuraleyda Siraadley ee gobolka Sanaaga taas waxay ahayd jabhadda laga hadlayaa waa wax yar bixin waxaan 10 gaarin ayay ahaayeen waxaan u arkaa in dadku verification u sameeyay buunbuuniyay oo laga dhigay wax balaada ah iyaguna markaas 4 wiil oo meel istaagay oo yiraahdo jabhad baanu nahay beeshuna waxay raacsan tahay maaha oo beelii deegaankaas ka soo jeeday waa diideen oo waxay ma raacsanin 4 wiil oo meel istaaga haddii la buunbuuniyo wax badan laga dhigo delibaxyay bay soo qaadanayaan maxay yihiin waa 4 wiil oo meel taagtaagan oo adeerkiisa media laga arkay beeshii iyo deegaankay ka soo jeedeena uqaashoodii iyo wax garadkoodii baa ka hadlay waan ogolay waxaan leeyahay dadkiina ku soo biira wax hadeer maanta Soomaaliland jamhad uma baahna wixii jabhaday soo maray oo la soo maray wixii oo dhan waa laga baxay maanta jabhad wax la yiraahdo dalka ku shaqayn mayso waxa danta ku jirta ninkii wax tabanaya inuu yimaado oo waxaas ka tabanaya yiraahdo waa la xalilay Cabdiraxmaan Axmed Star TV Ceergaabo